يا هتوشي لا مركو درارة يا هلا بني دتاي شو سنت على قلبي أول أبو قلدير أورجسن وقعد هشام محل هذا دح دح لو دمشت daawadayaal soo dhawaada galabta waxaan ku suganahay wadada 200 ama soo taqaamnaanba Hargeysa bypass roob daay jawigu aad iyo aad buu qurux badan yahay inaba lama qiyaasi karo baan qoran karaa halkan hadii ilaahay ka dhigo galabta ayaa waxaan doonayaa bulfalo qurux badan oo magaalada dacalkeeda ama daafeeda waqooyi inaad ka soo duuba hadii ilaahay ka dhigo dabayl badan baa dhacaysa iga raali ahaada maagina waa ka imika buurtan maraya waa xundurgeel weeyaan waxaan doonayaa inaan halka hadii ilaahay ka dhigo bal galabtaan idinla wadaago jawigu siduu yahay daawasho wanaagsan na soo raaca naga hadhina daawade sidaan hore idinku soo sheegay waxaan ku suganahay wadada Hargeysa bypass waa wado cusub oo si casri ah loo dhisay isla markaana magaalada dhinaca waqooyi ka marta wadadan oo loogu tala galay inay culayska saxmadda iyo cidhiidhiga ka qaado wadooyinkii hore ee Hargeysa road number 1 iyo road number 2 kuwaas oo ay isticmaali jireen gaadiidka isugu kala goosha dalka aynu jaarka nahay iyo dekedda Berbera haddaba sidaan idin soo sheegay galabta waxaan xog buuxda idinka siin doonaa wadadan sidoo kale waxaan u sii socon doonaa xagga iyo geela sababtaan halkan u imi galabta ayaa waxay ahayd sidii warbixin buuxda aan uga siin lahaa akhyaarteeda iyo asxaabteeda daafaha dunida kala joogta taas oo si ay wax uga ogaadaan wadada Hargeysa bypass sidoo kale waxaynu eegaynaa bal maxaa iska bedelay Hargeysa kadib markii la sameeyay wadooyinkan ay ka mid tahay Hargeysa bypass iyadoo ay jiraan wadooyin fara badan oo caasimadda dhex mara isla markaana fududeyn jiray isu socodka caasimadda ay dhismo ka socdo isla markaana qaar badan oo kamid ah ay wadooyinka xiran yihiin haddana bal waxaynu eegaynaa wadadani maxay ka bedeshay isu socodkii caasimadda aan dib ugu laabtee dhererka jidkan ayaa gaadhaya 22.5 kilomitir ujeedada dhismahan jidka ayaa ahaa sidii caasimadda Hargeysa oo si xawli ah u koraysa isla markaana fidaysa looga qaadi lahaa saxmadda cidhiidhiga iyo jaamka faraha badan ee ku hayaan gaadiidka waaweyn ee isugu kala goosha wadanka aynu jaarkana iyo dekedda Berbera kuwaasi oo alaabada ka soo daabula magaalo xeebeedka Berbera isla markaana geeya magaalo xuduudeedka Wajaale haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu wehelinayo safiirka dalka Britain ayaa si rasmi ah waxay xadhigga uga wada jareen jidkan Hargeysa bypass kadib markii xadhigga laga jaray wadadan ayaa waxaa si toos ah u bilaabay isticmaalka gaadiidka noocyadiisa kala duwan taasina wax weyn ka tartay saxmaddii ka jirtay magaalada oo culayska ugu badan uu markii hore saarnaa road number 1 iyo road number 2 sidaad halkan ka arkaysaan wadada 200 waxaa gaadhay dhiskii guryihii iyo ganacsiyadii dhalinyar fara badan ayay dawladdu digniin ku bixisay si ay sooga daayaan isla markaana ay u joojiyaan dalxiiska ay u tagayaan wadadan maadaama gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo aad xawaare aad u sareeya ay ku soconayaan ay maraan wadadan dawladda ayaa waxay ka digtay in dhalinyartaasi ay khatar ugu jiraan
inay ku galaan shilal baabuur oo kala duwan. Galabta oo aan halkan imi waxaan la kulmay jawi rooban, rabadaan oo saddexa iyo afradii oo soo dhow. Daadkan aad arkaysaan ayaa waxaa keenay roob weyn oo ka da'ay waddada magaalada iyo guud ahaan waddankuna roobkuu ka wada da'ay. hase ahaatee waddadan ayaan ka muuqanin wax saameyna oo uu keenay roobku iyada oo si heer sare ah loo sameeyey. odayaal sida arkayseen waxaan joognay waqooyiga magaalada Hargeysa waxaanu halkan kula kulannay geel caanihiisa lagu iibiyo qaybo ka mid ah suuqyada magaalada Hargeysa gaar ahaan jigjiga yar lagu iibiyo xaafadda jigjiga yar. geelan baan haddii Ilaahay ka dhigo caano aan ku afurno aanu ka qaadan doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. daawasho wanaagsan maanta kunayaasha magaaladaan wareegi doonaa ee nala socda insha Allah gaar ahaan wadada 200. daawasho wanaagsan bal geelana iminkaan dhex geli doonaa iyadoo caanaha laga lisayo ayaan toos idin dhex geyn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. namarsha ورجيرمية ما شاء الله. ريال وقلب رمضان ويان رمضان عاوة صدح هل كان بنكو أفردونا قلبت واحد كلا أفكار صار من عنا جيران هين عنا جيل بنكو أفردونا هذي لا يكدي قردية إيه كلا لسي يجو كل ويمكن حش كسر بحين أيامكو أفردونا داو شو ناكسنا هذي لا يكدي كدي سعد كيني وسيورنا إن شاء الله هذي لا يكدي. daawadayaal iminka waxaa la soo gudlay hashii la lisi lahaa ayaa la soo gudlay waa ka neerkiigu soo daayay hashan ayaa markii gudlato insha Allah naloo lisi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. bal daawasho wanaagsan sida geela loo lisa halkaa ka dhugta wataa imikaas jaqaysa daawasho wanaagsan. نرجع مرة كنت قاعد نرجع كنت قاعد إسك قلنا نش. المغلق تثقيله كيلا مرقودة يا هاي لابني دكتاي لابني يا دكتاي لابني دكتاي يا اوكي وركتان حقنا كلا حدوك لك هاي مجيء هنيت بالله هنيت حقا كلامنا مسكين نعم بك كلتا حقا نيك تشوف ما حروك خبان كرسو وقر حقنا ما مدكتي قرك واحد قلت هو مدك يبلغ سمكة يتشلن حقنا مدكتي يدي قلع ولا قلع ادق نور بيان مكين الله دقع سرع بقى ادق شو سنت على جلس اول ابو قلدير ودرقسان مقعد هشا حل هذا دح لو دمست تو جوا ميل لو باباي موقت تمام دميه ما عاني ما كدميه ما كتن تمام كدميه تمام كدميه درك نادك كيسان كيل وحو كعبا بيه كعبا لبدا درك ودرك ساونا نفسه halka loo lisiin bileegi doona insha Allah ana san hadii Ilaahay ka dhigo marka qaadan doona iyagu kulul baan galabta ku afuri insha Allah tan waa gabno weeye tani waa aydino waa gabno aydinka maxaa la yaa aydinka taan caana badnayn yaa aydin la dhaha أيدين كان يسكبر تقرأ. وقبل. حركي له تبغى عشان حركي. أرسل برغلة.
labada koob oo feera iska saarnaa hadii Ilaahay ka dhigo labadaas oo ku afur doona insha Allah wala keeg si keeg سوميس لحية صدم كوب كعانة هلكم خلصية كوب كي لبيتهم كمبالسية صدق كوب برضه قاتل لك صدق من الجيس سوميس لاشين كل جنتا أفر طلاب يشين لا تسنت أوكا عصر لي قلبتي مركزك دائمي لذا عين كوديو كالي عياد عجبيسي ساعتها وحلها ساعة وحلها جول هاور مالها ساعة ذهبي مالها بدنا dadka فيديوغرافرada filmaanta iyo waxa duuba waxyaabahan caadiga ahayn ayaa aad u jecel saacada afurtii yar ma kaanay فرحة يوم نشات كابو ونيت سماتيدا بس شيلو دقاني دهابي عنا وينك انتيدا لحظتي وحنون كابو وما ذوق نروشيدا لحظتي وحنون كابو وما ذوق نروشيدا فرحة يوم نشات كابو ونيت سماتيدا بس شيلو دقاني دهابي عنا وينك انتيدا لحظتي وحنون كابو وما ذوق نروشيدا لحظتي وحنون كابو وما ذوق نروشيدا فرحة يوم نشات كابو وميت سناتيدا بس شيلو دقاني دهابي عنا وينك انتيدا halkaa waxaa garoonku badeed maadaama xilli rabadaan lagu jiro dhalinyartu waxay aad iyo aad ugu madadaashaan kubada ayaa ka mid ah halkan koob baa lagu qabtay koob xaafadaha qoobka magaalowgaaso dab la taagay aadanshiine ilaa iyo kilarka ina aamin star bogos 150ka intaasoo dhan baa ku wada ciyaaraysa xaafadaha inta leeg bay isugu yimid dhalinyarteedii kubaduna way socotaan wadarkiisan si u socoto taawasho wanaagsan uu dhigay ninkaas kubad fiican buu dhigay mid kale iska soo shuuday xagga naadinta ciyaaraha iyo xasan ku wanaagsan inay si fiican ma idinku soo timin lahaa ciyaarta ciyaar xaafadnimo ninkii soo maroon ba garanaya kubadda garoonka ciidda lagu ciyaarayo taawasho wanaagsan halkan saad arkaysaan dhammaan calaamadihii rootiinka oo dhan baa loo sameeyey xaggan iyo xagganba waxaad ka marayso yeeldigii baa loo sameeyey wax kasta calaamad kastoo ku hagayso wadadan halka laga laabanayo ayaa lagu dhammaystiray wadadan gaadhigan saad arkaysaan khalad buu soo marayn baabuurta inta badan way ka wahsadaan in wadada ay xaadkooda saxda ah ay la soo wareegaan ooda way ka wahsadaanoo markaa haad khaldan ayay maraan halkan naga horeysa waxa ku yaala biriishka Soomaaliland ugu dheer buurta naga horeysa soo muuqata cundurgeel baa leeyahay liidadkii wadada ama calaamadii ayaa sidoo kale halkan soo socda halkaas dadka arkaysan naag kamid ah ayaa halkaas soo socota liid kamid ah dhalinyaro aad iyo aad u fara badan ayaa halkan isugu timaada galabta jumcada iyo xilliga firaaqada khamiista iyo jumcada ku badnaadaan baabuur badan bay soo kaxaystaan sawirray ku galaan iminka qaar kamid ah baa joogaba wadarkiisaan ku nimka afurtii bay gaadhay wadarkiisaan nimka gawadhadina fuulayaan niscati sadaka ka arkaysan waa biriishku halkaas ka bilaabmaya oka ilaa iyo waxa la sheegaa inuu biriishkan yahay biriishka Soomaaliland ugu dheer ayaa la sheegaa sidoo kale waxa la yiraahdaa biriishka kala jabba isaguna jira biriishada Soomaaliland ugu dhaadheer hasa atabimka waxa la isku waafaqay mutafaq calayhiya in biriishkan uu yahay biriishka Soomaaliland ugu dheer biriishka kala jab ee berbere marka dhinaca Burca laga soo geliyo magaal xayawaan la marayo ayaa la yahay isaguna biriish aad u dheer kuwa dhalinyarta sawirka ku kaliya علم وايد سلامي calaamadaha wadada aan idin sheegay ee wadada lagu dhameystirayay waa kuwan iyagoo la sameeyay markaa Allah أيها الموجوع صبرا إن بعد الصبر بشرى
أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا أيها المكسور قل لي هل يديم الله كسرا يا كسير القلب مهلا إن بعد العسر يسرا أيها الموجوع صبرا إن بعد الصبر بشرا isku duubaynay laba vlog oo isugu jira vloggii geela iyo vloggii wadada Hargeysa bypass oo imika xaqaana saab la marka ka timaado ay calaamadii ku soo socdaan isla markaana wadada intii kala gabagaba tahay oo la dhameeyay calaamadihii oo ooga ama protein kasta oo wadada ku yaala calaamadii loo dhameystiray isla markaana liidadkii iyo calaamadaha imika wadada lagu wado ayaan galabtii idin duubaynay xaqaana saab loo in badan baad ka daawateen oo barnaamijyada YouTube ku jira oo dhan xaqaas laga diyaariyay laakiin xaqan kale ee xeero ayaan wax fiican laga diyaarin sidaa awadeed baan galabta xaqan soo qabanay vlogga quruxda badnaa ayaan halka geelayo wadada bayni ka duubaynay intaas baan ku soo gabagabeynayaa daawasho wanaagsan videoga soo dhamaysa baan ku leeyahay saaxiib soo dhamaysa videoga ka noqon aad iyo aad baan salaamaya salaamu calaykum labada kaliya qoor soonta iyo salaada iyo iskuulada waxay naga aqoon قوانين حيوان سعر سوحلية ما ينادي سو قاعدين. لا وش هو ناس ساين بتقليو.